dadka degan hareeraha jiinka webiga Shabeelle ee dhaxmara bartamaha magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay iskaga barakacaan guryahooda kadib markii uu buux dhaafay webiga Shabeelle isla markaana uu ku fatahay xaafadaha ku teedsan hareeraha webiga. xaafadaha dhagax jabis iyo ku tiimbo inta badan uu ku fataho webiga ayaa xilligan qarka u saaran in biyo ka soo fatahay webiga ay galaan guryaha ku yaala xaafadaha magaalada. runtii waxay afka u haysaa webiga magaalada Beledweyne qayb kamid ah ayay dhinac u tahay keligii weynaa ee dhagax jibis ayay daris la tahay waxa soo fatahay keligii weynaa ee dhagax jibis ayaa wuxuu ku soo fatahay xaafadda magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadan dhagax jibis walow ay jiraan xaafado kale oo ku fatahay laakiin halka aan joogno waa xaafadii dhagax jibis keliga weyn ee dhagax jibis ayaana wuxuu soo sameeyay fatahaad biyo waxa barakacay in badan oo dadkii deganaa keliga nawaaxigiisa ah ilaa ay haddana biyuhu waxay ku sii siqayaan xaafadba xaafad ayay u sii dhibaysaa biyuhu waa socdaan ilaa ay haddana wax dadaal ah oo aan arkahayna ma jiraan in badan oo maata ah ayay guryahoodii ugu soo galeen in badan oo caruur ah ayaa barakacay hooyooyin badan iyo aabayaal badan oo aan awoodin inay barakacaan ayaa maanta halkan ku barakacay maanta buundada weyn ee hoos maray Beledweyne waxaan biyaalayn muddo badan nasiib wanaag waxaan hadda soo gaarnay xilli ay socdaan biyo fatahaad oo fara badan xabsi weyn ayaa dadweynuhu ka qaba waxaana dareemaa inuu baxayo sidii lagu arki jiray ama caado u lahay webigu saadaashii bixitaanka noo muuqata sidaas darteed xabsi badan ayaa laga qabaa Beledweyne iyo soonihiisu inay fatahaadu ay wada saameyn doonto duqa degmada Beledweyne Cumar Ibrahim Baadiyo ayaa sheegay bulshada ku nool hareeraha jiinka webiga looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan fatahaada webiga laakiin waxaan cadeynaynaa in maanta aan soo aragnay dadkii oo qaxayo xaafadihii biyo galeen dhibaatada biyaha ay wali ay soo gaarin magaalada Beledweyne biyaha xoogooda ay soo marayaan meel u jirto 58 kilomitir oo la yiraahdo dhuur raaxo marka waxaan u sheegayaa dadweynaha degmada Beledweyne in ay ka diyaar garoobaan ay u baxaan meelaha mataqaanaa loo bixi jiray jaddan ku disho ilaa mataqaanaa Buuro Yaaqoob ilaa xaafadda Howlwadaag arintaas waxaan ku bilaabay dadweynaha degmada Beledweyne in biyaha ka diyaar garoobaan ay mataqaanaa si aruursan alaabtooda ay maal iyo naf iyo wax mataqaanaa hadda mataqaanaa arrimaha problem ka imaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dawladda federaalka iyo guddiga mataqaanaa masiibooyinka qaranka waxaan ka codsanaynaa inay yimaadaan halkan ay Beledweyne indhaha ay ka daboosheen hadda ka hor haddana aan u cadeynaynaa in Beledweyne ay ku jirto gaab xun ee ku soo socota biyo xumo iyo biyo fasahaad ah marka waxaan ka rajaynaynaa guddiga ka hortagga fasahaadda mataqaanaa ka hortagga masiibooyinka inay yimaadaan Beledweyne ee dawladda federaalka iyo mataqaanaa ummadda caalamka dhan hay'adaha internationalka MGO-ga dhammaan waxaan ka codsanaynaa in dadkan la soo gaaraan waxyaalihii loo baahnay iyo xog badan oo ka hayna hadda fatahaada badan magaalada ku soo socdaan iyo guurtida ay ka iman jireen dhinaca Itoobiya hadda inay soo socdaan ay xog badan ku haynaa kulli bulshada waxaan ugu degaynaa meelo badan oo hadda inay biyaha soo gaaraan laga baqayo inay ka sii diyaar garoobaan bulshada caalamkana kulli arrintaas hadda gargaar ah hay'adaha iyo caalamka gargaar in arrintaas degdeg ah looga hortago si ka hortago lagu sameeyo arrintaas waxa waaye baqwan joognaa marka la gaaro xilli roobaadka guga ayaa webiga Shabeelle ee dhaxmara bartamaha magaalada Beledweyne waxa uu sameeyaa fatahaad saameyn ku yeelata dadka degan hareeraha jiinka webiga kuwaas oo bilaaba inay iskaga barakacaan guryahooda isla markaana u barakaca deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne